madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ummadda islaamka gaar ahaan shacbiga reer Somaliland ku hambalyeeyay curashada bisha barakaysan ee Ramadaan isagoo guul barwaaqo iyo horumar u rajeeyay guud ahaanba ummadda islaamka gaar ahaan shacbiga reer Somaliland. ilaahay waa mahadle caawa waxay noo bilanaysaa haddii ilaahay idhaahdo bishii barakaysnayd ee Ramadaan Kariim waxaan baliyo u dirayaa dhammaan ummadda islaamka ah bisha barakaysan awgeed ummadda reer Somaliland gudaha iyo dibaddaba ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu raxmaadkiisana inoo shubo ummadda islaamka ana bashbash iyo barwaaqo uu ku soo gaarsiiyo sanadkiisa ilaahay waxaanu ka baryaynaa dambi dhaaf iyo adduunyo san iyo aakhiro san ilaahay waxaanu ka baryaynaa wixii dhibaatooyin ummadda ka dulqaado ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu wixii bukaa caafimaadiyo caafimaad siiyo wixii dhibana dhibta ka dulqaado dhammaanteena uu inoo naxariisto ummadda Somaliland meel ay joogtaba waxaan ku ambaliyanayaa inay ka faa'iideystaan barakada bisha Ramadaan soonkeeda iyo ajarkeeda. mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa shacbiga reer Somaliland u soo jeediyay inay meel uga soo wada jeestaan wadajirkooda iyo horumarinta dalkooda. waxaan kaloo soo jeedinayaa Somaliland meel ay joogaanba dadkeeda inay walaaloobaan ilaahayna ka baqaan iyagu is ixtiraamaan dalkooda wada dhaqdaan wada ilaashadaan wada horumariyaan iyagoo mid ah ilaahay waxaan ka rajeynayaa wixii dhibaato ah inuu inaga dulqaado dhammaanteenba wixii khilaafaadka dhexdeedana uu inaga qaado oo boggeena burcad soo mariyo gaar ahaan dagaalada qabailka ee nagu soo noqday inuu ilaahay dadka dagaalamaya ee iskhilaafsan boggooda burcad soo mariyo oo hawlahooda inaga dhamaadaan ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaan ku gaarno bisheeda barwaaqo iyo horumar